hambalyo kowda luulyo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وعد مجيد محمد عبد الله. دمان أمضى الصوماليات ما والبيع الدنيا دافية كجوجان. وحنوهم بلينا يا همبلية كودا لوليو. همبلية قد بحن ما أنت أنا يا أصحابتي إذا عن وقلت لك قلنا إن الدنيا تسعين عن دب أفيرنا تاريخ بودن كولياي. ومد ولي بحال هذا تاريخ حليو الحصة سيدا كله بحال هذا هاي dad u gaar ah xirnimodoon ah oo wadanka mataqaana dad gaar ah oo la xuso sidoo kale waxay leedahay waqtiyo mataqaana iyo munaasabado oo wadan waliba uu leeyahay oo u gaar ah oo maalmo la xuso maanta anaga aan joogno waa koodii luuliyo waxaan xuseynaa maalintii aan xirnimada qaadanay maalintii waxaan xuseynaa maanta mataqaana calanka Soomaaliya ee Soomaali ee noqotay ummad gaar ah ee noqotay mataqaana wadan uu maamulayo qof Soomaali ah talyaaniga meeshii aan mataqaanaa uga saarnay waxaad arki doontaan bulsho dhowr ah oo ku faraxsan maanta munaasabadan meeshaan ka dhaceyso ee aan ugu hambalyeynayno Soomaaliyeed kowdii luuliyo hambaliyada kowdii luuliyo waxaad arki doontaan qof waliba iyo taariikhda inta uu ka sheegayo hadduu Ilaahay yiraahdo waxa ku soo dhaweynayaa asxaabteeda kale magacaygu waa Anis Maxamed Cabdullaahi waxaan halkaan uga hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan maanta oo ah kowda luuliyo 2020 waxa xuseena sanad guuradii 6aad tani markii aan xornimada qaadanay kowda luuliyo 1960kii waa maalintii ay xornimada qaadateen gobolada koonfureed isla markaana ay ka qaateen gumeysigii Talyaaniga kowda luuliyo 1960kii waa isla maalintii ay midoobeen gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed. Assalaamu calaykum salaan ka bacdi haddaba maanta oo ah kowda luuliyo sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegtay maalintii xornimada ummadda Soomaaliyeed ee qaadatay oo teedana kala ah oo qiimo weyn ka siila midowgii koonfur iyo galbeed ee waqooyi gobolada waqooyi waa maasantiin laatan iyo 6 Juun ayana kamid ah maalmaha taariikhda xusuusta mudan laatan iyo 6 Juun waa maalintii ugu horeysay ciidii ama geeyga Soomaaliyeed ee laga taagay calanka quruxda badan ee alifaanka caanka Maxamed Cawaale Liibaan bismillaah magacaygu waa Yacquub Xuseen Cabdullah waxaan hambalyo tiiraanya leh u dirayaa bahadooyinka Soomaaliyeed waxaan gabay tiiraanya leh oo calanka u tiriyay abwaankii caanka ahaa أبوان عبد الله سلطان تمعده وحنا كمد أها هذين كاسمان سدي أوتريي سرية ومنس قامو عن سيدو يها إيجا كنسيب كنصار anigoo magacayga yahay Anfac Maxamed Cabdullaahi waxaan u dabaaldegaya kowda luuliyo 1960 xilliga xornimada ay qaaday ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogto waxaan leeyahay sanad guura wacan